السلام عليكم دمان أخيارتي شرفت لك كسو دواada سهر decoration aan dhehena sahar maanta maxay idiin wadaa sahar maanta waxay keentay hadana ubax kale darbiga lagu dhagsado insha Allah ubaxaasoo aan ka sameeyay wax easy oo fudud wax saas u dhib badan ma aan akhyaartay waa u jeedaan geeska kale ayaan u gidiyay waa u jeedaan sabaan akhyaarta geeska kale ayaa u gidiyay waxaan ka sameeyay waa waraaq ama warqad run ahaantii kan kalena waa kaasaa ka rinji madow ku buufiyay kana rinji gaduud ayaan mariyay marka akhyaartayda sharafta leh waxaan rabaa maanta inaan ila wadaaga ayaa jeclaystay kaartoon waaye maqas aan usoo isticmaalay waana soo jaray kaartoonka midkan wareeg ayaa usoo jaray kan kalena waa u jeediin uu ka gedisan yahay mid rinji gaduud ayaan u isticmaalayaa kaartoonka wareegsan ubaxa rinji gaduud ayaan soo mari doonaa kan kalena waxaan kasoo dhigi doonaa sida dibka daawuska oo kale asana waa arkaysaan akhyaarta rinjigan ayaa kusoo buufinaya waa spray beeti madow waaye marka waa u jeedinaa akhyaarta black waaye waa kusoo buufinaya insha Allah waxaa kaloo halkan ku heystaa waa warqad waxaan usoo duubay sidii bacda cilaanka oo kale waa kana hadda akhyaarta warqadda waa duuban kartiin qof walbana warqad wuu duubi karaa balse waxaa jeclaystay inaan nii tuso sidaan ayaa u duubayaa sidaas ayaa u duubay akhyaarey markaa duubo waxaan u isticmaalayaa waxay tahay guluugan ama hot glue halkaas ay ka duuban tahay ayaan ku dhajinayaa koolada kadibna waa xoog ayaan ugu riixayaa wax yar kadib warqadda ayadaaba isqaabsan doontaba run ahaantii waa easy aadna way u fududahay qarash badanna kaagama baahno wayna qurux badan tahay kaliya waxay kaaga baahan tahay waqtigeedana wax saas usii dheer xitaa ma ahan waa kana akhyaarteyda ayagoo badan ayaa halkan kusoo diyaarsaday hore ayaa u duubay kuwaas xabadan tusaale ayay ahayd waa idin tusaya inkastoo qof walbana uu duubi karaa balse waa iska jeclaysta inaan ii tuso hadda waxaa sameyneynaa ubixii wareegi ahaay ee wareegsanaay kan daawuska dibkiisa oo gale wuu dambeyn doonaa kan wareegsan ayaan ku sameynayaa waa arkayseen labada kaartoon way kala gedisnaayeen samahan si kala gedisan ayaan usoo jaray macnaha kan wareegu ahaa kan kalena haaf markaasaan wareejiyay ayaan haaf ka jaray waxaan rabaa kaas nashqad kale inuu kusoo baxo kanna inuu noqdo nashqad wareegsan run ahaantii sidaas ayaa iskugu aadinaysaa afarta xabo ugu horeysa sidoo kaaga qalqaloocanin ujeediin hadda labada kale aan ku dhajinayaa waan isku aadinayaa laba iyo laba iskugu aadinaysaa ujeediin akhyaarta warqadda gadaal waa ka jari kartaa haddii aad nacayso afka hore ee dhuuban arkaysa waad ka jari kartaa maqasaa u qaaday dhag waxaad siinaysaa kadibna waa ku dhagsanaysaa waa kana akhyaarta sidaas ayaa u wareejinayaa meel walbo bannaan xabad warqad ayaan gelin doonaa xabadaas warqadda markaa geliyo ool kurti waa kusoo wareejinayaa waad arkaysaan akhyaarteyda inaan nii tusaa jeclaystay kaamirada ma daminin sidaas ayaa koolada isku sii marinaa hoos fududeys waayo maaho warqadda meesha ii taalaa waa soo qaqabanaa le oo ku dhadhajiraa kooladana marka hore waa inay saa'id kugu kulaataa haddii kale way kaa qaboobaysaa maahano markaa kaartoonka ku shubtid haddii wax yar ka daahdid way qaboobaysaa laakiin hadday kulushaa xoogaa sifiman ay kusii haynaysaa waad ku dhegsan kartaa waa u jeedin akhyaarta saas ayaa usoo fududeeyay howsha dhan intaa hal xabo meesha koolada inta ku mariyo warqadda ku dhegsado waqti ayay ahaan lahayd balse hadda waxaa sameeyey koolada ama marsada waana kusii dhajiyay akhyaarta waa kaasaa meel walbo bannaan waxaan gelin doonaa warqad nashqadan hadda saan ayaa u wareeji maahano wareeg kalaa sii korsaana ilaa barbanaanada ay ka buuxsamaan xitaa hadday ugu qabad wareeg saddexaad waa sii saarayaa sababtoo ah
ma rabo meelaha banaan, waxaa rabaa inaan qariyo oo wixii is haysta ay noqdaan oo markaas isku dhagan. waa ujeedina qaarada xabada markaa ku dhajiso qurux kaliya ma noqonin geeskan meel walba banaan adiga waxaa ku xakunto inaa hal warqad gashato kadib caadi ayuu kugu soo baxaya. waa kana khiyaarteeda qaaliga sidaas ayaa ugu dhadhajinaysaa, wax dhibaato ah ma ahan. runaantii maanta ma dedegsani, wax badan anoo degdegsan waa idiin soo geliyey. waa kana khiyaarteyda waa ujeedaan waa kusoo wareejiyey xoogaa sidii hore uu kasoo qurux badnaana maaho. waa nii sheegayba hadaati meel walboo duleesha ama banaan warqad ayaad gashanaysaa kadib wareeg ayuu kuusoo noqonayaa, wareeg kale ayaad kor saareysaa si uu kugu qurux badnaada. xitaa wareeg saddexaad waa kor saari kartaa, qurux buu ka qaadayaa wuuna kusii weynaanayaa, wax dhibaato ah ma keenaya. khiyaarteyda waa kaasaa. waxaa rabaa inaan soo wareejiyo halahan haddaa idin tusay ka badan iima tusi karo. waqtigaaga naga dhacaya somahan video waqti dheer soconaya soo wareejinaa markaa soo wareejiyo sida hadda oo sameynaa kala ku soo wareejinaya, saas ayaa soo wareejinaya kadibna dabaqad kala soo kor saari doonaa. waxaa u isticmaalaa marka rinjigan waa rinjiga cindiyaha, rinjiga la buufinayo haddaa haysid waa marsan kartaa. rinjiga cindiyaha guduud waaye, gududka sidaas ayaan ku doorbiday, halkaas afka ayaan ka marinaya, sidaas ayaan ugu soo wareejinaya. markaa mariyo kadib korna waa kasii marmarinaa si ay warqada daliigmaheeda ee u muuqanin. run ahaantii warqadan warqad kaloo ka fiicanaa jirto oo warqadan waa warqada imtixaanka somahan. okay hadeertaan waxaa sameysanaynaa waa kii dibka daa-uuska oo kale ahaay ayaa rabnaa inaan sameysano. khiyaarta codkeyga xoogaa wuu xiran yahay ka raali noqda, harga waa far igu hayaa ku dhah. harga waa mar dhow i aroosay khiyaarteyda 7 ku jira marka. waa kaasaa khiyaarteyda kan ma ku holeynayo waa idin tusooyaa tusaale leh waaye. sidaas ayaa usoo wareejinaya, meeshaas kartoonka uu ka jaran yahayna wax kuma soo dhejinaya, halahaas koro hadda idin tusaayo bis kusoo wareejinaya. markaas wuxuu noqonayaa sida dibki daa-uuska oo kale ayuu noqonayaa somahan. waa kusoo wareejinayaa, markaa kusoo wareejiyo asaga dhan aan soo shaqal diro warqada isku dhadhaweeyo, sidaas ayaa usoo wareejin doonaa. kadibna waxaan u isticmaalayaa waxay tahay waad arki doontaan guluuganta oo keliya isticmaala, wax ka gedisan ma isticmaali doono. okay khiyaarteyda waa iska aruurinayaa micnaha waan soo dhejinayaa. kadib waxaan isticmaali doonaa waa rinjigaas madowga spray beti waaye, waa kusoo buufin doonaa insha allah. sidaas ugu buufinayaa meel miiskaan ka qaadaa meel banaan aa geyn doonaa. spray betinka waa kana khiyaarteyda hayahee warka keena. sidaan ayuu kusoo baxay, waa kii dibka daa-uuska oo kale ahaay. waa ujeediin waa soo buufiyey, waa soo kooleeyey, dhexda baashasa ugu soo dhejiyey. baashaasna wax weyn ma ahan, waa doonta koofiyadaha laga sameeyo. waaba soo geliya umaleynaaya iyadoo wax ku sameynayo. gaduudkan ayaa wax yaris iiga dambeeyeen, marka waa iska soo duubay, markaa farka gacanteeda ku duubay kadibna waa jaray. waa kana khiyaarteyda kii kaleento. run ahaantii kan kale waxaa ka muuqdo daliigmaha warqada ayaa ka muuqdo. warqada way jirtaa mid wada cad, haddaa wada cad haysid taasaa beele. waa kana khiyaarteyda derbiga ayaa kusoo dhejiyey. haddaa warqada wada cad haysanina dhib malahan, waxaad ku buufin kartaa rinji buufis hadda waa kaasa waxaa looga jeedaa midkaas madowga daliigma dhan ma loogu jeedo, qurux kaliya waa cadaan iyo madow yaryar isku jiro. waa aad qurux badan khiyaarteyda, sharafta badan meel walba dunida daafeeda ka joogtiin kusoo dhawaada Sahra Decoration aan dhehana insha allah. kulanti dambe iyo video kalo cusub. haddaad ka hesho like saar, subscribe saar, comment igu soo dhaaf wixii fikradaada ah insha allah.